بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد انت كدب ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ومهد له انت كدب عاوة وحانو وفدناه محاضرة دي maantay la iclaaminayay xalayna la iclaamiyey insha allahu tacaala ku saabsanaan doonta gudniinka dumarka oo uu sheekheena insha allahu tacaala wax ka odhan doono arrimahaas gudniinka ku saabsan iyo haweenka maalmahan dambe hadalhaynteedu badatay gaar ahaan gobollo qaar ay Soomaalidu degto ayaa waxaa miisaan iyo macno badan u sameynaya in ay maalmahan dambe ay noqdeen marin ay dad yow ku ta'athuray reer galbeedka ay ka dhigan hayaan marin ay diintii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ku diidaan ama ku dhayalsadaan ama xataa ku dumiyaan culimadeenuna in badan way ka hadashay laakiin mar walba waa in lagu celceliyo laga hadlo mar walba oo ay maaragtay ay keensato dantu in dib loo tawdiixiyo shubuhaadka la furahayana dib looga maaragtay shaandheeyo insha allahu tacaala muxaadaradan aadka loo sugahayay oo ummad badan oo Soomaaliyeed ay in badan ku hanweynayd ayaan insha allahu caawa u fadhinaa waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu anfaco waxaan kusoo wareejinayaa fadiilatu sheekh alcalaama sheekh محمد عبده أمل فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida uu sheegay Sheekh Abdi Xaliim fadhigani wuxuu ku saabsan yahay mowduuca aanu bixinay khitaanu al-inaas bayna taqriir al-ulama wa tawdiif al-umala gudniinka dumarka ama hablaha sida culimadu ay u taqriiriyeen iyo sida gaalada iyo inta ay ku shaqaysato ay u isticmaaleen saladaasi ayaan insha Allah taala u fadhinaa wixii Ilaahay naga waafajiyo inaan ka dhahno munaasabada keentay waa taa uu sheegay Sheekh Abdi Xaliim oo ah maalmahan masalada aad loo hadalhayo weeye iyada iyo kuwa la midana horeyna ugu jireen haddana way soo xoogeysteen hadalhaynteedana hadda waxaa keenay golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay marsiiyeen qaanuun xaaraan ka dhigaya ama dembi ka dhigaya gudniinka hablaha ama sunni ha noqdo ama fircooni ha noqdo arrintaas oo abuurtay runtii falcelin fara badan oo culimadu ugu horeeyaan ka jawaabay oo radiyay gaar ahaan culimada reer Puntland arrintaas oo cidda ka dambaysan runtii la garanayo oo u ololeynaysa aadna looga falceliyay bulshada in badan oo ka mid ah iyo culimada intaba bal hoggaanka dhaqanka qaar ka mid ah ka falceliyay sida boqor burhaan oo dhageystay runtii kelimo aad u qiimo badan ka lahaa masalada ka yidhi waxaa marka soo baxday qoraallo qaarkood iyo dadka qaarkood oo qaanuunkaasi u doodaya ha u doodeen hadday ugu doodi lahaayeen
meeshuu ka yimid iyo raadqaadkiisa iyo cidda wadata iyo arrintu way fududaan lahay laakiin waxay salka u saareen qaarkood inay wadaadada iyo culimmada qaar ka mida qabaan oo hadallada wadaadada la googooyey iyo qaar si xun loo fahmay dadkay soo qaateen waxaa ka mid ah sheekh maxamuud shibl oo kale sheekh dirir oo kale anigoo kale bay soo qaateen oo ay leeyihiin culimmadaasaa qabta marka masaladuna waa masale ka weyn wadaadadan la sheegayo o dhan masale ka weyn waa walaa 100 dirir iyo 100 umal iyo 100 shibl hadday isu yimaadaan masaladu waa ka daaweynta masale ay iyagu xarimi karaan ama ay xalaaleyn karaanna maaha marka hadalladaas la gogooyey ama sida khaladka loo fahmay iyo mas'alada oo runtii waxa weeye mas'alo khuduuradeeda la ah ayaa waxaan jeclaystay inaan wax ka idhaahdo aad ugu dheeraan maayo mas'alada adiladeeda ay leedahay oo waxaan kaga gaabsan doonaa insha allahu tacaala dhowr xadiis iyo culimada muslimiinta guud ahaan waxay ka qabeen ayaan insha allahu tacaala taasiilkeeda sharciga kaga gaabsan doonaa gudniinka wuu jiray waqtigii nebi moxamed sal alla alay wasalam shareecadu degaysay caanna wuu ahaa arrin la yaqaanuu ahaa rag iyo dumarba inuu jirayna waxaa tilmaamaysa axaadiis iyo aahaar badan oo soo aroortay bal nebigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam mujtamacaadka iyo bulshooyinka kale khaasatan kuwa kirishtanka ah iyo dowladahoodu waxay u yaqaaneen melikul khitaan boqorkii gudniinkay u yaqaaneen sida saxiixa ku yimid ninka la dhihi jiray hiriqla waa ka riyooday boqorkii ruum kirishtanka marka wuxuu ku riyooday wuxuu yidhi waa intaa nebiga aan la soo saarin wax yar ka hor wuxuu yidhi waxaan ku riyooday ummad isgudda boqorkoodaa soo baxaya ee bal fiiriya ummadaha yaa isguda waxaa la yidhi yahuud baa isgudda yahuud ha la laaya buu yidhi markaasaa waxaa la yidhi kuwaasi dhib weyn kuguma hayaanoo muxuu ahay khatar weyn kuma jirto raadiyay buuhi marka yaa kaloo isguda carab baa isguddaa la yidhi marka kirishtanku yahuudda way isgudi jireen kirishtankuna laba kooxood bay ahaayeen koox isgudda iyo kooxaan isgudin carabtuna way isgudi jireen rag iyo dumar inuu saa u jiray waxaa kaloo tilmaamaya xadiidka shaxiixaynka uu soo saareen lafdiganna muslim baa iska leh min xadiid abi muusa alashcari nebigu markuu ka warramayo sal alla alay wasalam ninku markuu galmo sameeyo xilliga qabays ku waajibayo wuxuu nebigu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac wamassa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu markuu afarteeda adin dhexdooda fadhiisto ninku oo labada meeloodoo gudan ay istaabtaan qabayskii waa waajibay buu nebigu sal alla alay wasalam bimacnaa ninka meesha birtu martay oo laga guday iyo haweenayda meesha laga guday labadaasi markay isku aadaan oo xubinka ragga qaybtiisa horena ay gudaha gashay markaasaa qabaysku waajibay buu nebigu sal alla alay wasalam waxaa ka muuqda marka in khitaanku iyo gudniinku uu labadaba ku dhexi jiray dumarkana ku dhexi jiray raggana ku dhexi jiray xadiidkana waxaa soo saaray saxiixka bukhaari muslim baa soo saaray lafdigana muslim baa iskale xadiidka labaadii waa xadiidka abu hurayra oo nebigu yuhi sal alla alay wasalam alfitratu khamsun fitrada waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha wanaagsan ee ambiyada laga soo gaadhay ama wanaaggooda aadamaha ilaahay ku abuuray
shan weeyaan buu nebigu uri sal alla alay wasalam shantaasi waxa weeye alkhitaan wاlاstixdaad waqasu الshaarib wataqliimu اladfaar wanadfu اlaabaad waa gudniinka timaha gumeerka ku yaalla oo la xiiro kuwa shaarubtoo la gaabiyo cidiyaha oo la iska jaro timaha kilkilada oo la iska tifo intaasuba waxyaalaha wanaagsan ee ambiyadii ilaahay laga dhaxlay bay ka mid tahay ama waxyaalaha wanaagooda aadamaha ilaahay ku abuuray bay ka mid tahay fitrada macnahaasaa la yidhaha marka khitaanka gudniinka lama kala qaadin rag iyo dumar looma kala qaadin khisaalulfitray ka mid tahay mana kala qaadin xadiidka xadiidka kale waa xadiidka umu catiya oo ilaa 5 saxaabada ka mida laga wariyo duruqdiisuna mid maqaal ka madhan uusan jirin laakiin markii la isu geeyo xasan gaadhay oo nebigu sal alla alayh wasalam dumarkii gabdhaha gudi jiray uu nebigu sal alla alayh wasalam ku barayo qaabkay wax u gudi lahaayeen oo uu leeyahay laa tanhakii meesha in la gooyo loogu talagalay salka ha ka wada jarin wax yar taabsii ha wada goynin faina dalika axdaa lilmar'ati wa axabu ila albacli inaan xubinka la wada jirinoo wax yar uun laga taabto ayaa haweeneydana u dheef badan inay shahwadeeda gudato ninkeedana u kalgacayl badan yacni labadoodaba inay shahwadooda gutaan oy raaxo dareemaan in aan xubinka wax weyn laga goynin baa keenaya marka xadiidkaasi waa xasan bimajmuuci turuqihi marka la isu geeyo turuqdiisa uu ku soo arooray ilaa 5 saxaabi baa laga wariyaa laakiin ariiq walba hadal baa ku jira gooni ahaantiisa xadiistaasi marka qaarna dumarkii iyo qaabkii loo gudi lahaa bay ka hadlayaan qaarna gudniin guud bay ka hadlayaan oo rag iyo dumar la kala qaadin xadiidka kala qaadaya oo dumarka gudniinkoodana ka dhigaya wax iska sunno ah ragga gudniinkoodana ka dhigaya inuu yahay shay adag waa daciif ma sugnaa waana xadiidka shadaad ibnu aws laga wariyo ee ku yimid inuu nebigu yidhi alkhitaanu sunnatun lilrijaal makrumatun linnisaa gudniinku raggana sunnu u yahay dumarkana wanaag buu u yahay xadiiskaasi waa daciif cinda almuxadisiin culimmada xadiidka agtooda ma sugna maxaa yeelay waxaa ku jira nin la yidhahdo xajaaj ibnu arta ah oo mudallis oo cancaneeyey wamaca dalika idiraabna waa ku jira saas daraaddeed ma sugnaa xadiiska kala qaadaya rag iyo dumar inta dan kaga soo gudubno waxaan ku adkayn doonaa culimmadu waxay ka qabaan waxaan jecelahay inaan caddayno gudniinkan ka hadlayno si aan arrintu aynan dadka isaga qasmin gudniinka aan ka hadlayno waa gudniinka sunniga ah gudniinka fircooniga ma aha gudniinka sunniga ah waa midka ay culimmadu tilmaamayaan alimaam abulmacaali aljuwayni fii nihaayati almatlab markuu tilmaamayo wuxuu yidhi alqadru lmustaxaqu min annisaa'i maa yanطaliqu calayhi اlismu qadarka dumarka in laga gooyo ay tahay waa wuxuun magac goyn uun ku rumoobayo magac goyn uun maxaa yeelay xadiidka waxaa ku soo arooray buu yidhi maa yadullu cala alamri biliqlaal xadiiska waxaa ku yimid buu yidhi wax ku tusaya in qadarka la goynaya la yareeyo oo waa kee wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku yimid ashimii walaa tunhiki ashimii maxaa laga wadaa ashimii waxaa laga wadaa buu yidhi utrukii almowdica ashama walashamu lmurtafic buu yidhi yacni xubinka markaad gudayso dumarkii baa laga hadlaya markaad gudayso isaga oo sarreeya ka tag oo salka ha ka jarin marka isagoo sarreeya ka taga waxaa laga wadaa buu yidhi wax yar uun ka taabo xadiiska daahirkiisaa laga fahmayaa buu leeyahay gudniinka noocaas oo kaleeta a marka la gudayo oo la samaynayana dhaawac weyn ma laha dhib badanna ma keeno
bal gabdhaha marka la gudo ayaga oon seexaninoo u seexaninoo rafaadinoo ooyin bay iska soconayaan dhaawac badanna ma leh fiction ma keeno dhibaato ma keeno hadhow markay weynaadaanna haba yaraatee dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ma laha caadada ma rafaadiyo dhalmada ma rafaadiyo dhibaato kale ma keeno wax haba yaraatee darar oo uu leeyahay ma jiro inuusan wax darara lahaynna waxaa tilmaamaya dhakhaatiirta muslimiinta oo baxd fiican ku sameeyey iyo weliba dhakhaatiir aan muslimiin ahayn laakiin waxoogaa xor ah dhakhaatiirta laba ah qaarna waa kuwo xor oo maskax xora iyo baxdi xor ah ku hadla qaarna waa qaar maskaxdooda la haysto oo wixii loo yeedhiyo unbay sheegaan oy qoraan marka xataa dhakhaatiir gaalaa oo baxdi ku sameeyey waxay leeyihiin gudniinka noocani wax dhiba ma keeno kuwa muslimiinta iska badaa bal waxaaba ka dhib badanba gudniinka wiilashaa ka dhib badan marka gudniinka sunniga ee dumarka la yidhahdo waxaa ka dhib badan gudniinka wiilashaa ka dhib badan leanna wiilka marka la gudo waad aragteen oo xubinka la gooyo muxuu ahaayey buuriyada la gooyo baashii muxuu ahaayey balagta la gooyo mudduu rafaadaya soo ma mudduu rafaadaya marka waxaad moodaaba haddii cid uun loo turayo la dhihi lahaa war rafaadka ha laga daaya raggaa la dhihi lahaa laakiin waxa la yaab la waayo war raggii hal la gudaa laysku waafaqsanyah dumarkii in la gudana waa dembi baa la leeyahy calashaani waxa la leeyahy way ku rafaadayaan oo raggu ma rafaadayaan miya haddii la dhihi lahaa ragga gudniinkooda waa waajiba waa laisku waafaqsan yahay waxaan leenahay sax maaha culimo badan baa waxay qabaan ragga gudniinkooda laftooda waa sunne waajib maaha sida gudniinka dumarka laisugu khilaafsan yahay xukunkiisa ma sunna mise waa waajib ayaa gudniinka raggana laisku khilaafsan yahay ma sunna mise waa waajib fuqahada muslimiinta dhexdooda marka maxaa kana adkeeya ficlan khilaafku waa ka yaraa adagaya marka dumarka la yidhahdo ragga khilaafka rag ku jira dumarka ragga ku jira adag laakiin labadu waa loo masalo khilaafiya waay marka laga hadlayo ma waajiba mise waa sunna ka aan ka hadlayno marka sida halkan uu ku saabsan yahay waa gudniinka noocaas ama gudniinka fircooniga ah oo xubinka dhan in salka laga gooyo ah kaasi waxa weeyaan waa xaaraan qaطci ah waay waana jariimo waalidka samaynaya iyo haweenayda gudniinka noocaas ee fircooniga samaynaysa labaduba gabadhana dembi weyn bay ka galeen ilaahay agtiisana dembi weyn bay ka galeen laana xubinkan jiritaankiisa muhiimad baa loogu talagalay ilaahay wuxuu u abuuray macno weyn iyo muhiimad baa loo abuuray marka adraarta iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay ee gabadha ku dhacaysa iska badaa warkiisa laakiin waxaa xusuusin mudan gudniinka fircooniga oo bulshada intooda badan hadda laga tegay laakiin weli meela ku dambeeya iyo dadka qaarkood yaa gaadhsiiyey bulshadu inay ka tagto gudniinka fircooniga ma dowladaa qasbay ma hay-adaa qasbay mise dacwada iyo culimada iyo wacyigelintaa keenay ya wacyigelinta culimada iyo dacwadaa keentay oo dadka iyo ummadda fahansiisay gudniinka noocan inuusan saxsanayn iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ma aha waxay hay-ada keeneen oo hadda ay tahay hay-ada ummadda ka dhaadhiciyeen ay natiijadan keeneen ma aha soomaalida gaar ahaan dowlado barnaamijkaa ka shaqeeyo oo hirgeliyana maba aynan helinba oo la dagaalama laakiin bifadli illaahi waxa waaye dacwada iyo wacyigelinta iyo culimada dowrkooda ayaa wuxuu keenay bulshada inteeda badan inay hadda ka baraarugto gudniinka fircooniga oo laga tago meel uu ku dambeeya waa jira iyo dad uu ku dambeeya haddaan intaan kaga soo gudubno culimada muslimiintu waxay isla ogol yihiin in gudniinka sunniga ah ee hadda aan soo tilmaannay ama gabdhaha rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee inuu mashruuc yahay mashruuc maxaa la yidhaahdaa mashruuc bimacnaa wax weeyaan in uu ugu yaraan bannaan yahay markaa kadib ha laysku khilaafo
shareecadu inay jidaysay waa la isla ogolyahay laakiin jidaynta shareecadu ma waxay gaadhsiisan tahay waajibnimo mise waxay gaadhsiisan tahay sunnanimo waa la isku khilaafo laakiin waxa la isla ogolyahay inay shareecadu ay jidaysay intaa waa qadarka la isla ogolyahay waana qadarkaan doonayno inaan dul istaagno inay culimmadu isla ogol yihiin iyagoo nusuustaa aan soo sheegnay cuskanaya maxaa xagee laga qaadanaya aan dhowr imaam hadalkooda soo guuriyo waxaa ka mid ah alimaam ibnu hubayrata ashaybaani kitaabkiisa ikhtilaafu ala'ima wuxuu leeyahay ittafaquu على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الأنثى مشروع علماء المسلمين توحي اسكو راعين قدنين كالرقع إيه كان دمر كوبا إنو يهي وح شريعة تشيديسي وحي اسكو راعين كاقا قلت وحاكم ذا الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه مراتب الإجماع أسوقنا وحو ليه واتفقوا على إباحة الختان للنساء علماء المسلمين توحي اسكو راعين dumarka guditaankoodu inuu bannaan yahay wax bannaan oo shareecadu jidaysay inuu yahay alimaam ibn rajab alxambali kitaabkiisa fatxulbaariga saxiixulbukhaariga uu ku sharxay isaguna wuxuu leeyahay wakhitaanu lmar'ati mashruucun bigayri khilaaf dumarka guditaankoodu waa wax shareecadu jidaysay khilaaf la'aan culimmadu iskuma khilaafsan الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كيسة تحفة المودود بأحكام المولود يسونا وحوليه هاي لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه علماء اسكما خلاف سنة إني السنة هاي قدنين كالدمركو لكن وحي اسكو خلاف سيهن بواجبا الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع يسوون وحوليه واتفقوا على إباحة الختان للنساء وحي اسكو راعين علماء دمر كقدتان كودو إنو بنايهي الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى الكبرى يسوون وحوليه وذلك فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة gudniinka rag iyo dumarka ma kala isagoo la kala qaadin wuxuu leeyahay arrin shareecadu banayso waliba adag inay tahay muslimiinta oo dhan baa isku waafaqsan buu طيب inta hadaynu fahanno marka waa ilaa taqriiban 6 kamida aimada muslimiinta oo soo guuriyay waxay culimada muslimiintu ka qabeen oo inay isla ogol yihiin in shareecadu banaysay inay shareecadu jidaysay طيب marka la soo gaadho shareecada jidaysay ayaa jidayntu waxay u kala baxaysaa ma shay iska bannaan oo mubaaxa ma shay mustahab oo sunna aba ma shay waajib oo intaaba ka xoog badan ba sidaasayna aymadu isugu khilaafayaan marka kadib laakiin maxay isku waafaqsan yihiin masalada dabageliskeedu yuusan idin ka lumin masaladu waxa weeye ma wax shareecadu jidaysay oo bannaan baa mise wax xaraan inay shareecadu jidaysay la islama diidanaa culimaduna iskuba khilaafsanaa laakiin jidayntaasi heerkay gaadhsiisan tahay ma waajibba ma mustahabba ma makruma oo makrumadu maxay haddana tahay taasay isku sii khilaafayaan طيب inay waajib tahay rag iyo dumarba in la gudo waxa qaba al-Imam Shafi'i iyo jumhur ashabihi iyo adharu riwayatayn عن الإمام أحمد بعض المالكية waxay leeyihiin rag iyo dumarba in la gudo waa waajib culimada qaar waxay leeyihiin ma waa sunno ragana waa sunno way yara adag tahay in la muxuu la gudo dumarkana waa uun iska mustahabo way ka yara fududahay gudniinka dumarku waa ka yara fududyahay sidana waa sida madhabka xanafiyada iyo maalikiyadu ay qabaan madaahibtii afarta ahayd baa marka kala duwan oo qaarna waxay leeyihiin rag iyo dumarba waa iska sunno waa laga tegi karaa macnaha oo ruuxu khiyaarkiisa waa uga tegi karaa طيب qaarna waxay leeyihiin lagama tegi kareen labaduba waa waajib
qaarna way kala qaadayaan laakiin maxay isku waafaqsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay shay shareecadu jidaysay oon xaaraan ahayn qadarkaasay isku waafaqsan yihiin oo culimmadu ilaa waqtigii saxaabada ilaa hadda ay isla ogolyihiin khilaaf ku jira ayib intaa way inta aan doonayno inaan dul istaagno oo fikirka hadda socdaa iyo wax weeyaan waa xaaraan dembi ah waxa socdaay oo hadda doodu ka taagan tahay wax weeye waa xaaraan aan la ogolayn oo tashriic iyo qaanuun laga jidayn oo ciddii samaysana la soo xidhi oo maxkamad la saari qadarkaa marka waxa weeye in shayga laga dhigo xaaraan haddana dembi ah ruuxii sameeyana la ciqaabo qadarkaasi wuxuu ka hor imaanayaa ijmaaca culimmada oo ah inuu yahay shay shareecadu jidaysay qolada tidhi waa sunno iyo qolada tidhi waa waajibba waxay isku waafaqsan yihiin inaan la dhihi karaynin shaygani waa shay xaaraama iska badaa in laga dhigo shay cuquubo iyo dembi laga dhaliyo ama ruuxa loo ciqaabay iska badaa in laga dhigo waa u tegi doonaa insha allahu tacaala su-aasha isweydiinta le waxay tahay xikmadda ku jirta maxay tahay jidaynta gudniinka waxay yidhaahdaan laba ragga gudniinkooda maqsuudka laga leeyahay iyo xikmadda ku jirta waxa weeyaan waa dahaara ku jirta siduu leeyahay sheekh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wadalika ana almaqsuuda bikhitaani الrajuli taطhiiruhu min الnajaasa almukhtafiya في القلفة يعني وحوي باشن ليلة هذو هرجن كرسارن حبن كترن كقيبتي سهرة أي قلفة ليلة وحود دبولة يا قيب سهرة حبن كترن كيرجع قيب تأمركو دبولة وسخ باكو أروريس wasakdaas marka in la nadiifiyo laga nadiifiyo ayaa gudniinka ragga loola jeeda ujeedadu waa in la nadiifiyo waa nadaafad ama dumarka wal maqsuud min khitaan al mar'ati ta'dil shahwatiha ibn taymiyyah zaasole culimadu badan zaasay waxa loo jideeyay dumarka in la gudo shahwadooda iyo dareenkooda ayaa la isu dheelitiraya qiyaasta ziyaadada uu wataa laga khafiifinaya uu sii wada wuxuu yidhi fainaha ida kaanat qalfaa kaanat muqtalimatan shadiidata ashahwa hadday haweenaydu ay buuryo qab tahay oo ayna gudnayn waxay noqonaysaa buu yidhi muqtalima shadiidata ashahwa mid shahwadeedu zaa'id tahay oo muxuu ahaayey aan isxakamayn karayn dhici karaysa inay shahwada ziyaadadii ay cifadeeda iyo dhowrsoonaanteeda khatar geliso saas daraaddeed baa wuxuu yidhi waxaa la yidhahdaa markay iscaayayaan dadku bini aadamku markay iscaayayaan waxay ku yidhaahdaan wiilka hooyadii aynan gudnayn waxay ku dhahaan yabna alqalfaa kii hooyadii buuriye qabka ahaydw bay isku caayaan maxaa yeelay faina alqalfaa'a tatadallacu ila arijaali akar haweenayda aan la gudini inta badan raggay u hanqaltaagtaa buu yidhi sida badan walihaada min alfawaaxishi fi nisaa'i اtatari wa nisaa'i alifrinji maa laa yuujadu fi nisaa'i lmuslimiin buu sidaas daraaddeed dumarka caddaanka ifrinjigu waa ree yurubka dumarka caddaanka iyo dumarka tataarka dhexdooda buu yidhi fawaaxishta iyo zinada taalla ma dhex taallo dumarka muslimiinta yacni waxa weeyaan ilaa haddaba waa sidii waay ilaa hadda waa sidii marka wuxuu leeyahay waxay keenaysaa in yacni waxa weeyaan laga dhigo shay dhexdhexaada shahwadii dumarka waidaa xasala almubaalaqatu fi lkhitaam buu yihi dacufat ishahwa haddii xubinka la goynayo lagu xadgudbo oo qiyaas weyn laga gooyana waxay keenaysaa buuhi markaasi inay shahwadu daciifto waa haweenaydii dareenkeedii iyo shahwadeedii ay hoos u dhacdo oo iyadana ayna dareenkeedii gudanin ninkuna uusan dareenkii la rabay ka helin taana lama rabo wey macnaha
falaa yakmulu maqsuudu rajul haddiise la gooye buu yihi qiyaastii shareecadu ugu tala gashay wuxuu yidhi markaasi xasala almaqsuudu biictidaal maqsuudkii la rabay baa markaasi si dhexdhexaad ah oo isu dheelitiran u xasilaya intii siyaadada ahayd ee fitnada keeni lahaydna waa laga gooyey in ku filan oo shahwadeeda ku gudato ninkeeduna shahwada ku helana waa u joogtaa sidaas daraaddeed ictidaal iyo tawaasun baa imaanaya buuri wallahu aclam marka xikmadda ku jirtaayo waa xikmaddaasay leeyihin culimada muslimiintu waxaan doonaynaa marka inaan dul istaagno oo mudan runtii masalada meesha ay u dhimanaysaa waxaan hadda soo sheegnay gudniinka dumarka xaaladaha ugu yar meesha ugu hooseysa culimmadu waxay leeyihiin waa mashruuc ama mubaax dheh ama mustaxab dheh qaar waajib bay gaadhsiiyeen laakiin kaba soo qaad ama waa mustaxaba waa shay samayntiisa ajir laga helay ama ma ahee waa shay iska mubaaxahoo samayntiisa ayna dhibaata ku jirin ayib culimmadii muslimiinta hal nin ah hal mid oo laga soo guuriyey ma jiro gudniinka dumarku waa xaaraan kutubta ilaa wakhtigii saxaabada ilaa maanta haddaad daba gashaan ma helaysaan hal caalim oo muctabar ah oo yidhi gudniinka dumarku waa xaaraan ma jiro haddii lan idhaahdo marka annagoo wakhtigan hadda joogna gudniinku waa xaaraama waa dembi waa khilaafu lijmaac wixii ummaddu isku raacday culimmadeedu isku raacday soo jireenka ahaa nusuusta salka ku hayay ayaynu khilaafnay waan garab marnay waxaan jidaynay haddii uu ruuxu isagu lafahantiisa iska xarimayo waxaa kala duwan inaad qaanuun jidayso qaanuun xarimaya markaad qaanuun jidayso way ka sii daran tahay qaanuunkaasoo dhahaya waa xaaraan isla markaa ciddii samaysana waa in la xidho la maxkamadeeyo dembi ka dhigaysa la ciqaabo markaa way ka daran tahayoo waa tabdiil sharci illaah waa shariicadii ilaahay oo aada beddeshay oo aada ku beddeshay qawaaniin bini aadan ay wataan way ka culus tahay markaasi ma sahlana halkaasaa marka waxaan isweydiinaynaa yaa xaq u leh xalaalaynta iyo xaaraamaynta iyo jidaynta yaa xaq u leh yaa leh xaqa isaga allah keligii baa iska leh qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigu masaladaasi cad bay u qeexeen oo aan gabbasho lahayn cidda jidaynta iska leh iyo xalaalaynta iyo xaaraamayntu waa allah oo keliya xaqaasi cid kale muuna siinin laa baarlamaan ma laha walaa golo wasiiro ma laha walaa madaxweyne ma laha walaa sheekh ma laha waxay shareecadu bannaysay inuu yidhaahdo waa xaaraan xaqaasi cidina awoodu ma laha waa xaq ilaahay gooni u leeyahay waay maxaa ku tusaya bal min almacluumi bidaruurati min alkitaab waالsunna waاlijmaac masaladaasi waa masalo caanahoo la wada ogsoon yahay waay adiladeedana waxaa ka mid ah allah qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay alaa lahu اlkhalqu wاlamru allah abuurka isagaa iska leh amarkana isagaa iska leh amarku waa laba nooc alamru اlkowni waalamru الsharci kownkan amarka lagu maamulee kun ah ilaahay baa keli u leh ma cid baa la wadaagta maya kownka sharci dejintiisa iyo nidaamkuu ku socon lahaana allah baa gooni u leh oo kutubtuu soo dejiyey iyo rusushuu soo diray buu u soo dhiibay qaabkii bini aadamku u noolaan lahaa ee xalaashiya xaaraantana isagaa iska leh masaladaa meesha lagu xidhay u fiirsada abuurka ilaahay ma lagu haystaa ya war abuurka ilaahay miyaad ku haysataa baarlamaanoo ma ku haysataa oo golo wasiiro ma ku haysataa oo madaxweyne ma ku haysataa oo wadaado ma ku haysataa ilaahay inuu abuurkan leeyahay soo jawaabtu maya maaha jidayntana inaad ku haysato waa khalad jidaynta iyo abuurka cidda abuurka iska leh ayaa jidayntana xaq u leh
masalada meeshaasaa lagu xidhay meel dhow ma ah haddaad ilaahay addoommadiisa ku haysataan oo dhulkan iyo samadan iyo addoommadiisa aad ku haysataan ood leedihin waan la abuurnayna hadde meelay idin geysaba la qabsada jidaynta haddaad se ogoshihiin abuurka allah iskale jidaynta inaad ku qabsataan waa xaqdarro waana gardarro alaa lahu alkhalqu waalamru saas daraaddeed buu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhigay jidaynta iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta nooc shirkiga ka mid a allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ma waxay leeyihiin kuwo ilaahay wax la wadaaga oo diinta xaggeeda uga jideeya waxaan ilaahay idmin kuwa jidaynta inay wax jideeyaan loo ogolaadayna kuwa xaqa ilaahay la qabsaday oo la haystaa laga dhigay kuwa xaqaas siiyeyna waxaa laga dhigay mushrikiin ilaahay wax la wadaaji marka adiga haddaad ogolaato jiho kalea wax jidayn kartana shirki baad gashay kaas isdhigay booskii wax lagu jidayn lahay waxbaan jidaynayaa yidhina xalaal iyo xaaraan baan waxbaan xalaalayn oo xaaraamayna xaqii ilaahay buu la qabsaday oo ilaahay xaqiisii khaaliska ahaa ayuu la qabsaday waana masalo halis ahoo gaalnimo iyo kufri keenaysa waa iska cadla sidaas daraaddeed buu ilahay wuxuu ku magacaabay shurakaa am lahum shurakaa waa shirki waxaa kaloo masaladaa tilmaamaya xadiidka aayadda qur-aanka fii suurati الtawba ilaahay yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah waxaa laga hadlahay yahuudda iyo kirishtankaa laga hadlay waxaa la yidhi wadaad culimadoodii iyo suufiyadoodii ayay rabbiyaal ka dhigteen alle ka sokow cadiy ibni xaatim saxaabiga la yidhaahdo ayuu nebigu ku dul akhriyay markuu yimid isagoo soo islaamayoo saliib wuxuu qabay macatab wuxuu qabay oo silfar ama fida ayuu qabay markaasuu soo islaamay nebigu yimid sal alla alay wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi tuur wax aayaddan waa ku dul akhriyay markuu aayadda ku dul akhriyey baa wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cadiy ibni xaatim rasuulka ilaahay ow innahum lam yacbuduuhum mayna caabudi jirin culimadooda iyo wadaadadooda suufiyada mayna caabudi jirin dadkan aad adiguna leedahay ittakhaduu axbaarahum warabbaana arbaaban min duuni illaah mayna caabudi jirin markaasuu nebigu wuxu uhi sl bala inayna caabudi jirin iska baddaaya way caabudi jireen oo seen ku caabudi jirnay innahum xaramuu calayhim alxalaal wa axalluu lahum alxaraam faاtabacuuhum fadalika cibaadatuhum iyaahum buu nebigu sal alla alay wasalam wadaadadiinna soo wixii ilaahay xalaaleeyey idinkamayna xaaraamayn wixii alla tabaaraka wa tacaala xaaraameeyeyna soo idinma xalaalayn soo maydaan ku raacin haawa nebigu wuxu uhi sal alla alay waslam cibaadadaad caabudeen waa taas oo ma cibaado kalea meesha taalla haddii intay golaha muxuu ahaay baarlamaanku intuu wax kuu xalaaleeyo o kuu xaaraameeya adigana aada sacabka u tunto oo golaha wasiiradu intay waxay doonaan xalaaleeyaan oo xaaraameeyaan adiguna aada ku raacdo nebigu wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam waad caabuday rabbi baad ka dhigateen ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah masaladu masalo dhow ma ah masaladu masalo dhow oo ruuxu muslim oo aakhare rumaysanoo ilaahay u tagahayo oo janniya naar rumaysanoo masalo uu ku khamaari kara maaha masalo uu ku fududaan karana maaha masalada xalaalaynta iyo xaaraamayntu masalo sahlan maaha nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaana gaadhin aayad kale waa ka ilaahi tabaaraka wa tacala fii suurati الnaxli walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadib beenta afkiinna iyo carabkiinu ku hadlaya darteed hadhihina tani waa xalaal kana waa xaaraam litaftaruu cala allahi اlkadiba si aad ilaahay ugu been abuurataan ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun kuwa ilaahay ku been abuurta oo xalaalayn iyo xaaraamaynta sameeya marna liibaani maayaan mataacun qaliilun in yar baa adduunka loo raaxayn walahum cadaabun aliimun cadaab xanuujiyana way leeyihiin
marka waa iftiraac cala allah ilaahay ood ku been abuurtay hawshii ilaahay baad gashay wabitaali liibaani maysid marka labaadna adduunka intaad joogto wax yar baad noolaanoo yaro tamashlayn cadaab xanuun badanna waa ku sugayaa nabigeenna moxamed sal alla alayh wasalam soomaalidu waxay yidhaahdaan weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa dhacday in uu dumarkiisa qaar ka mida agtooda ayuu malab ka soo isticmaalay dumarkii qaar baa ku masayrayoo markaasaa waxay yidhaahdeen malabkaas ay heblo siiso nebiga aan ku dirno si uu u daayo waxay ku heshiiyeen markuu u yimaado mid walba inay dhahdo nebi maxamedow xabagta macaafiir la yidhaahdo miyaad soo cuntay waxbaa xabagta waxoogaa yaro urta waya geed yaro ura adiguna markuu kuu yimaado saa ku dhe anigana markuu yimaado saas ku dhe malabkanaa lagu dirhaya ila iyagu ma hayaan mid buu agteeda ka cunaa mid buu u tagay markaasuu nebiga yani akalta macaafiirba geedkaasaad cuntay waxbaa maaragtay sibax u jiraan sii kaleu haddana u tago sidii kale ku tiri markaasaa nebigu wuxuu yidhi maya saynab agteedaan malab ka soo cunaye laakiin dib damba u cuni maayo waaba ka dhaartay ma qisadaasay ahayd mise qisadii maariya alqibطiya ahayd oo muxuu ahaayey iyadana axaadiisda qaar baa ku timid nebigu sal alla alayh wasalam muxuu ahaayey addoontiisii uu xoreeyey u dhashay wiilkiisa ibraahim ayuu dumarkiisa mid ka mida gurigeeda iyo gogasheeda ayuu muxuu ahaayey ku xaasaystay arrinkiibay marka ka hoyesho markaasay dareen qaadayoo kacdayoo waxay tihi rasuulka ilaahay ma gurigayga iyo goobtaydii baad sidaa ku samaysay suu marka u qanciyo u raalligeliyo ayuu wuxuu yidhi maya dib dambaba taa ugu tegi maayo waa ka dhaartay soo xalaal uma ah malabkanna xalaal buu u yahay waajibna kuma aha mustaxabna kuma aha inuu cuno xaaskiisuna xalaal bay u tahay laakiin nebigu dumarkiisa si u qanciyo ayuu uga dhaartoo isaga xarimay maxaa ka dhacay marka allah wuxuu yihi tabaaraka watacaala yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajika waa la canaantay nebiga sal alla alayh wasalam nebi allow maxaad u xarimaysaa wax ilaahay kuu xalaaleeyey adigoo dumarkaaga raali gelinaya iyo ridahooda raadinaya u fiirsada nebi maxamed sal alla alay wasalam haddii loo ogolaan waayey mogolo wasiiraa loo ogolaan war bal idinku is weydiiye masaladu la yaab bay leedahay mise baarlamaan baa loo ogolaan nebi maxamed baa rabbigii wuxuu ka diiday wax aan kuu xalaaleeyey ha iska xarimin oo lagu canaantay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabcan wuxuu nebigu xalaaleynaya loo ogol yahay inuu xalaaleeyo waa wax waxyi ku soo degay inuu xalaaleeyo laakiin wixii uusan waxyi u haynin nebigu sal alla alayh wasalam waan iska xarimay dumarka ku raaligelidii waa loo diiday waana lagu canaantay nebiga sal alla alay wasalam lima tuxarimu maa axala allah marka wax ilaahay xalaaleeyey oo aan daliil loo haynin in la xaaraameeyo iyadoo cid lagu raaligelinayo nebi maxamed baa rabbigii ka diiday cid kaleetoo laga ogolaanna ma jirto u fiirsada hadda taxriimkaasi waa taxriim shaksi ah waxuu nebigu isaga lafihiisa isu diiday waa oo uu ka dhaartay waa midda labaade kani waa ka duwan yahay hadda laga hadlayo hadduu nebi maxamed dumarkiisa ku raaligelinayay kan hadda laga hadlaya gaalaa lagu raaligelinaya waa midda laba kale kani nebi maxamed buu khaas ku ahaa kii nebiga lagala hadlayay kan laakiin hadda laga hadlayaay waa tashriic caam ah oo ummad muslima qaanuun looga dhigayo oo intaasoo sannadood sii jiri doona waaye nebi maxamedna waxaa loo diiday wax isaga keligii quseeya salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah tabaaraka watacaala wuxuu inooga digay
dadka shahawaadka raaca oo muxuu ahay shahwa raaca dariiqooda ilaahay waa inooga digay tabaaraka wa tacaala wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أرنتو waxay ka sii dari markay ujeedadu tahay yani waxa weeye shahawaad iyo fitan in umada lagu fursaan u tagi doono insha Allah taala marka arintaasi arin fudud ma ah wax ilaahay xalaaleeyay cidina ma xaraamayn karto wax ilaahay xarimayna cidina umada uma xalaaleyn karayso masalada markaan saa uga hadlayno ma aha yaana loo fahmin qawaaniintii kale ka horeysay masaladan hadda aan ka hadlayno ama dawlad goboleedyada u yaala ama dawladaha federaalka u yaala ee shariicada khilaafsan inaan leenahay wixii hore waa sax tan hal qabto ma oo dadka qaar baaba halkaaba mas'alo uga bixiyo war wadaadadu midan yarta maxaa daba dhigay bay dhahayaan ya wax ka waaweyn baa yaala sax wax ka waaweyn baa yaala oo andimadan iyo dasaatiirtan wadanka loo dhigo wax gaala laga keensaday Soma wax gaala laga keensaday wax shariicada islaamka kule ma aha طيب laakiin hada ka warba waxa leeyahay yaani wax weeyaan xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam taan qodob ka gaadhin kolba shariicada qaybta laga qaato mooyaane qaybta ugu dambeysay laga sii wadan hayaad kumitido ku dhigay tii hore ka tagtay bal tanu yeena ka tagay nabigaana tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka abi umamah al-bahili ahmad ibn hibban iyo hakim iyo soo saareen ayaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la tunqadanna ura al-islam urwatan urwa فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة إسلامك قنتميهيسا مد با لو برين دونا لو فوري دونا markii mid la furo oo lala tagana tii soo hadhay bay muslimiintu ku dhigi doonaan oo ku mitidi doonaan mid ba loo qaadanaya waxa ugu horeeyo islaamka la burin doona guntimihiisa waa garsoorka iyo dawladnimada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ugu dambeeyay la burin doonana waa salaada rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wixii ugu horeeyay oo si guud meesha looga saaro waxay ahayd garsoorka iyo dawladda ahayd kadibna maalin baqay baa la inaga tagaya ilaa hadda loo soo dhigtay gabdhaheeni iyo dumarkeeni xubinkoodii taranka laynoo soo gacan dhaafay oo hadda la leeyahayba adeer waxa looga talinayaa New York iyo Paris iyo London baa looga talinayaa UN baa u talisay idinku maxaa tihiin sidaad gabdhihiina iyo dumarkiina u maamul lahaydeen adeer dinka cadaanka baa idinka yaqaan warku halkaas uu hadda taagay yahay marka kuwii hore tagee oo wax badan baa tagay oo raali kuma nihiin oo kumana noqon karne laakiin maalinba midana maraysaanu ku dhageynaa oo ka hadlaynaa kuwii horena waa ka hadlaynaa munaasabadaas keenaysa in hadda masalada laga hadlo ilaa wax ka waaweyn baa meesha yaal shaki ma laha hal xaalad baa jirta oo la dhihi karayo gudniinku dumarka khaasatan iyo ka ragaba wuxuu noqon karayaa hal xaalad baa jirto la dhigu tilmaami karayo xaraan inuu noqon karayo waxaana xaaladda ka dhigi karaysa duruuf soo korodhay waa xaaladee waa markay ka dhalanayso gudniinka madarra ama dhibaato ka weyn ka dhalanayso oo maxay noqon kartaa مثلا أقليات dadka muslimiinta laga tira badan yahay wadamada gaalada ku nool wadamadaasina ay qaanuun ka dajiyeen gudniinka dambi ka dhigaya ruuxii muslim ee ku tilaabsaday wadamada ku hoos noolna ama xabsi ama cuquubo uu ku mudanayo ama caruurta in laga qaataba uu mudanayo markaasi waxaan leenahay iska daa sababta loo leeyahay maxay tahay ma aha asal ahaan xukunka gudniinka ma aha laakiin wax weeyaan waa dhibka soo kordhay ka dhalanaya
markaas shariicadu waxay maraysaa qawaacideedii caankaayda lagu yaqaanay ahaa irtikaabu akhaf dararayn laba dhib markay isku qabsadaan ka fudud baa la qaataa iyo qaacidadii ahayd dafcu a'zam al-mafsadatayn bi akhafihima xaalada noocaas oo kala way iimaan karaan oo waaqicu kalifayo oo musluuxa muslimka inuu mukhaatareeyo ma aha inaad khatar u gasho mas'ala noocan oo kala in caruurtaadii inta la qaato gaalo loo gacan geliyo ama adigiiba inaad halis u gasho ma aha xaaladahaas oo kale marka way iimaan kartaa laakiin masalada asalkeeda ma mujtamac muslim oo dalkiisa muslimka ku noolna ma waa aqaliyaadkii meelaha muslimiinta lagaga tabaruyo طيب haddii xaaladaas marka cabsidaasi jirtay marka waa laga in loo khatar galo marka ma طيب inta kadib waxaan jecelahay in aan ka hadalno mas'aladan iyo masaa'isha la midka ah yaa riixayo oo dabada ka riixayo wata waxa wata hay-adka UN-ka hay-adka UN-kana waxay ka keeneen dawladaha reer galbeedka mas'alada abtirkeedu reer galbeedku ku abtirsadaa hay-adaha UN-kuna barnaamijkooday fuliyaan mana dhaweyn xilliga la bilaabay in adduunka dhan qaanuun looga dhigo masaa'isha noocan oo kale ah ma dhaweyn Soomaaliya waad garanaysaan xilligii xukuumaddii militariga ahayd 75 baad baan u malaynayaa xilliga ay timid waxa la yiraahdo xuquuqda dumarka gabdhihii Soomaaliyeed oo wadamada reer galbeedka waxoogaa ku soo ta'athuray ku soo koray diintooda aan in badan waxba ka ogeyn la soo isticmaalay ayaa xukuumaddii waxay u keeneen wax la yiraahdo xuquuqda dumarka dawladii militariga waa qaadatay waxaa ka mid ahaa arrimaha guurka waxaa ka mid ahaa arrimaha furiinka waxaa ka mid ahaa arrimaha dhaxalka waxaa ka mid ahaa gudniinka arrimahan oo hal bajad ah iyadoo wada socota ayaa la keenay dawladdii waa qaadatay markay qaadato madaxweynihii ku dhawaaqay culimadii baa ka hor yimid sidan oo kale hadda markay culimadii ka hor yimaadeen maya dhaheen saayisha dhaxalka ka mid ah iyo aayaadka dhaxalka maya markay dhaheenna waa kii culimada Soomaaliyeed la daldalay oo la laayay 10 culimada ka mid ah masaladii loo dilay waay Soomaalina meeshii ay ku kala fiigto balaayadu ka raacday halkaas ay ahayd 75 Soomaaliya ya 75 waay meeqa sana ka soo wareegtay ya dhowr iyo 40 sano Soomaa baashi aan ku halaagsanay baa ilaa hadda layna daba wadaa marka laga hari maayo ilaahay amarkii shacabku markuu muslim yahay afkaar qariiba marka korka lagaga keeno inta badan ma hirgasho nin kamida raggii maxkamadaha joogay oo masalada baadhis khaas ku sameeyay maxaa ka fulay ba maalin dhaweed ii waramay baxthi buu ku sameeyay imise kees ama imise kiis baa yimid oo maxkamadaha yimid oo arinta ku saabsan ama dhaxalka qaabkii shariicadu u dhigtay khilaafsan ama ma ahe yaani waxa weeye guurka faraha badan muxuu ahay dumarka badan la guursanayo ku saabsan ama muxuu ahay ku saabsan xuquuqdan dumarka ay u sheegayeen xoreyntooda wuxuu yiri kiiska ugu badan ee wax ka yimaadeen 5 kiis baa yimid buu qaar kamida hal kiis xataa maxkamada ma iimaan buu dadka muslimiintu banaankooda ku xalisteen wax dhaxal maxkamadihii dawladda la yimid oo qaanuunkii loo dejiyo rag iyo dumarku waa u simeeyeen u yimid oo yiri nagu kala saara ma jira buu kuwa kalena wax naadira dhacay buu waa nin baxthi fiican ka sameeyay marka hay-adkani waxan kadaata ilaa waqti dheer baa la soo waday hadda dhawaad garanaysaan dhowr bilood ka hor baarlamaanka federaalka waxa la keenay oo sidoo kale golaha wasiiradu u mariyeen qaanuunkii la dhihi jiray ay ku magacaabeen qaanuunka galmada
وحتى ما مقع أوها جاجيان بانر يا مقع هذه جاجين لها قانون كقل ماذا فول حما وإحنا كنا عوضوا كذا والسيرة دي بس مري لأن العلماء كم إذا وحويل علماء دي برنامج كده قال لهم يصير كم إذا يا وحويل رئيس الوزراء الله كل النبي مركزان كون يريبوري أرنتن نيه مصح سنة لقن كي أمضى الدين تودي بحاليس كنت هاي هلا تشوفي بحاضر مريسين وحويل يريبوري الشيخ الله جوانا لما رصدوا وأنا لقيت كذا لكن برلمان كون ده فريست والبلايا كعاد كاتب حيد ودك رئيس الوزراء زيادة قوي بلايا ذا كو قصبتي كعاد كاتب حيد واتلمامي دونا قاب كاللوجا أتكهذا يوحى مرصدي هذا نقول ما إنه بخصوص هذا بنتلان وكله ما دام هذا كيس كان هذا حوجا هو هاي ويدا قبل لو ذي مال مهن هيئات كان سيد العلماء ذو إيش شيئين لقبل لابد يكون يكوي إلى لابد يكون يلابدي وحي وذين وحي كلين أي مقالوين كواوين كسمينيه وصاصو لغو قبتي قالكعيو لغو قبتي قرو لغو قبتي سيمينارadaasi ay waxa ka qayb galay culimadii waxa ka qayb galay madaxda qaar kamida marka hore waxa wajiga hore laga dhigay gudniinka fircooniga la dagaalamayna gudniinka fircooniga in la dagaalamana wala isku waafaqsan yahay Soomaa sidii loo socday waxay markii dambe noqotay isaga looma basoconina maqaar saar buu ahaay halka loo socday waa halka waxay culimadu ii sheegeen 2011 kiisay wacyi gelinta u wadeen hay'aduhu 2011 wasaaradda arrimaha dumarka waxay baarlamaanka u soo gudbisay waa waqtigii muxuu ahaayay Cabdiraxmaan Faroole uu ahaa madaxweynaha waxay u soo gudbiyeen arrintan gudniinka ku saabsan laftiisa يا وزارة زوج بس برلمان كبنتلان وحصو صاري كأن ضحية جدنين كفرعوني جاء مبنانا وأنا دمبي كان سني جاء أنا وبرنايه ولا بدي يكون يو كوي طبعا كيوان مركو صاري مدحويني حل جاز وعبد الرحمن فرولي هو صحيحي طبعا تدال فربضا كده بأرنتاس وحي وقحنا هالشيء هذه وحن كشقيني قرار كاسي هذا ويا قرار برلمان صوم مريم مدحويني صحيح وقدنين كسني جا إنه صلبات الله إنه بنايه إكستا إنه أبهنين إنه برلمان هذا التقريري إنه قدنين كاسي صحيح ولا مدحوين إنه صحيح طونا إنه أبهنين هذا وحوي قال هذا باللقطة يفهمها وحي تاع برلمان بمرتي مدحوينه صحيحي بيفهمها طيب waxay ii sheegeen culimadu xilligii uu Cabdiweli Gaas madaxweynaha ahaa in laba goor la soo celiyay kiiska mar labaad laba goor la soo celiyay gudniinka laakiin aan lagu guuleysan hadda muddada dheer kadib ayaa hadana mar kale dib loo soo celiyay oo lagu guuleystay golihii wasiirada in la mariyo oo uu sugayaa golihii baarlamaanka طيب بلايدا محاوة مركا رقم كي بالشدة معها دين تودي معها وحفائدة وين ولا قد في مشرتو خطر هذا بني آدم كي الضمر كي لقى بعدين يكون مشرتو يهاليس صار صوت المعنى يبان دولة دي هي النظامية ده ودن ككرد السنة انتي بالشدة باهيدة دي كلو دن دبولين ضد أون محوها وحوجا وحي كوفا كي هيستان وباهن معها سوما هل كان وحي إلى كيسكي أمني جايا لو ودك يود أمني جيس بخلق الكجرة ومدي ويقاش هيسنت هاي محوها هاي كابياشي أساسي جن نلاشها مكان يا ومد دولة دي والسيرة دي مدح دي إسكفها كي هيستو مسائل هي ذا أوكي أنا كوفا كي هيستان معها وحوي الله كم مهم سن إيه ودن كم بربرسن إيه سيدي وحلاقة قبل لها إيه بالشدة الظروف تذا حلاقة قبل لها
maxaa keenay marka kiiskani ilaa inta juhdiga inta la dadaalka in laga inta soo gaar inuu soo noqdo bimacna waxa weeye waxaad garan kartaan barnaamijkani waa barnaamij dana weyn laga leeyahay ilaahay waxay gaarsiisan tahay masaladani in loo caga jugleeyo dadka khilaafsan culimada iyo ummadda inta ka horjeedaba in xataa loo caga jugleeyo loogu caga jugleeyo waa la idin maxkamadayn waa la idin xukumay طيب sidii 79 culimada loogu laayay in dadka loo caga jugleeyo in wasiiro hadda waxaan arkaay masalada ka hadlayo leh sidii isagoo kursigiisa lagu haysto kale wadankan laba dawladood kama jiraan ta ku hay wadankan laba dawladood kama jiraan sidii Sacuudiga oo kaleeto culimo iyo alloo qaybsaday xukunka meeshan kama jiraan hal dawlad baa ka jirta war kursigaaga nigabna kuguma haysto laakiin adiga waxaad soo gashay meeshii ummadda iyo culimada iyo diinta ayaad soo gashay meesha la isku hayo kursigaaga nina kuguma imaanin Soomaa kursigaaga dad ku fadhiisay hadaad wax ku hagaajin hadaad ku haleynba nin kugu haysto ma jiro laakiin adaa waxaad soo gashay meeshaadi meelan ahayn mas'aladani mas'ala degmo gooniyo qusaysa maaha wadaad gooniyo qusaysa maaha wasiir gooniyo qusaysa maaha madaxweyne qusaysa maaha waa mas'ala ummadeed waay waa mas'ala diin waa mas'ala taariikh la waay waa mas'ala nusuus la waay waa mas'ala ummadi ay leedahay maaha mas'ala wasiir iyo nin oday uu leeyahay maaha iyo wadaad toona marka waxayba gaadhay heer in muxuu ahay la isu caga jugleeyo ayay gaadhay hadda soo masalada hadda kama hadlayno gabarre gaarisa oo kuwa hawlahan u ololeeya kamid ah waxaan ku shaqeysto gaalada ku shaqeystaa ayaa waxay soo qortay ma aqaan arintay maqasho ma ka horeyso facebookeeda waxay ku soo qortay wadaadka Sheekh Umar la gaarsiiya in gudniinka dumarku uu Kenya ka yahay dambi fiidiyoyadiisana in lagu dacweyn karayo gaarsiiye oo meherkaasay baashu gaadhay aaway xorriyatul i'tiqaadki aaway oo xorriyatul qowlki aaway oo dimuqraadiyadii aaway oo waxa waa la naqdin karaa aaway waxay idin la gaadhay ilaa tiraadaan waa idin xidhxidhaynaa waa idin maxkamadaynayna halkaas baashu idin la fush waa wax la yaab leh sideedaba haddaad maqasho inaad hadashaad xor u tahay iyo inaad wax i'tiqaadisaad xor u tahay iyo xuquuqdaada xor baad u tahay waa inta gaaladu ay rabto waay waxaysan rabin haddaad qoorta la gasho xurmatiida qoorta lagu soo qabanaa laakiin waxa ka maqan dadka waxa uu ololeeyay mas'aladan in culimo ay 40 sano ka hor loo laayay ninka hadda loo dilo loo maxkamadeeyo loo rafaadiyana yaaba heli karaba waaba shahaade soo waxa la raadinayo ma hado diidda ilaahay difaacay hadii lagu dilo soo waxa la raadinayo ma waa intaas waay marka iyaga waxay la tahay wax waxoogaa la isugu caga juglay karo oo yaani la isku cabsin karo marka heerkaas ay gaadhay hadan la isugu caga jugleeyo war masalada idinkuna ka hadla anaguna aan ka hadalno way soo dhaaftay cartaabta way car halkaas ay taagantay arintani marka waxa weeye culayska inta leeg maxaa loo saarayaa baa isweydiin leh sababtu waxa weeye halkan mas'ala ma aha arintu masaladu waxay irid u tahay qadaayaad kale oo fara badan baa daba yaala Soomaalida waxay yiraahdaan nin la dhihi jiray muxuu ahaay ninkii inta badan maamaha fuliynimadu ay ku baxday muxuu ah higaal shidaad baa waxa leh subxaan yaa sanka ka martay baa subxaan yaa mutaqaan waa mas aan dadka qaniinin waay waxa ma qaniin subxaan yaa sanka martay markaasuu oohin iyo qayl isku daray war maxaad la qayliyo subxaan yaa baa sanka ka martay baa maxaa dhibo ku gaadhay wuxuu yiri subxaan yaa sanka ka hayo marto laakiin subxaan yada kama ooyina sankaygu halaq mareen inuu noqday baan ka ooyahay masaska dambe mari doona ee khatarta ayaa ka naxsanay hada mas'aladani waa furo mas'aladani marka la ismarsiyo waxa daba yaala
halaq mareen weeye masaa'il badan baa daba taala miiska hadda waxa saaran mas'alada la yiraahdo in ay dumarku caruurta iska soo ridi karaan waxa saaran oo daba yaala qawaaniin xaraan ka dhigaya zinada in lagu sheego waxun oo zinada xalaaleynaya waana mid caalamka la marsiiyay way UN-ka waa UN-ka hadda barnaamijka wata iyaga wata zinada hadda tiraado way xunto waa xaraan waa lagu qabsanaa wadamada qaar kood ma dhigi karto wakadalika khaniisnimada wakadalika dumarka isfuulaya Soomaalida garan waxa daba yaala waa la jideynaya wakadalika qawaaniinta akhiran marka dambe gaadhaysa caruurta ayagoo yar yar iskuulka lagu baro qaabka la isu fuulo iyo qadaayaadka jinsiga la baro kulliya wada waxa wada cadaanka hay'adaha UN-kana isticmaalaya waxa soo dhan baa furmaya wax ka daran waxa furmaya qoyskii isqabay iyo ninkii xaaskiisii is aragooda qaar kamid in dambi laga dhigo oo gurigii la dhex galo waxa furmayo daba yaala caruurtii la dhalay la korsanay in qawaaniin laga sameeyo waalidkii iyagii la kala dhex galo wax alla waxa khubti iyo xumaan reer galbeedku hayaan oo dhan ayaa daba yaala masaa'ishan oo ay furo u tahay sidaas daraadeed garbay u leeyihiin culimada muslimiintu inay dhawaaqaan garbay u leeyihiin dadka wax garanaya ee dadka diintooda iyo dhaqankooda ka danqanaya inay ka qayliyaan garbay u leeyihiin mana aha in la yiraahdo hal mas'alo oo fudud maxaad uga qayliyaysaa war mas'alo fudud ma aha balaayana waa tabadala iyaduna waa mas'alo xalaaleynteedii xaraameynteeda aysan sahlanayn sidaas daraadeed waa inay walaalayaal fahanno yoolka iyo meesha loo socdo waa dhaqan bedel ana ka aqoon badan ana ka sharfi fiican ana ka sharci fiican ana ka aragti fiican adigu afrikaan baa tahay muslim baa tahay ma fikiri kartid wax ma dejisan kartid dhaqan wanaagsan ma lihid aniga ka fiican kayga raac hatta haduu wasakh yahay wasakhdayda ka fiican iraac adduunkii baa sanka laga galiyay waa la isku sanduleeyay khiyaarna kama furra Soomaalitaan waxa ma yeeli karnaa anaga intaan rafan karna waa rafanayna Sooma tabari meesha ina dhigtaba intaan rafan karna waa rafanayna sababtu waxa waaye annaga waxaan nahay ummad muslim ah oo ka taariikh dheer reer galbeedka waxaan nahay ummad muslim ah oo ka dhaqan fiican reer galbeedka iyo cadaanka iyo UN-kooda iyo waxooda waxaan nahay ummad xadaarad leh oo caalamka muddo dheer hogaaminayay duruuftanadu hadda waxay dooniba ha noqotee waxaanu nahay ummad ku socota waxyi ilaahay soo dejiyay oo muqaddas ah oo aan waxba dhexgelin oo kitaab ilaahay sunna nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed فيلسوف يروح شهوة قادته يقال خربا وحو سودتي إلا بإيقا قادو وأنو محانا وفطاطير ميل فرداد أنا محان صمينيه ويران إناد بني آدم فكيري كالو رقن له كالتشر له كاقد ديسنان كرا إناد إيقو قلاد صوما ما يكون ما أقولي وحي قدودوك وقادو وحاكو قبقبين يا وادري ujeedada la leeyahay waxa weeyaan in mujtamaca la fasaadiyo gabdhaha guryaha laga saaro shahawaadka la furo fitanka la furo bulshadaasi dhaqankeedu baabao sida iyagu yihiin iyo si ka daran in la noqdo sidaas weeyaan waxaan doonayaa inaan dhaahdo dadka waxa ka shaqeynaya haddii aad ka toobad keeni weydaan ilaahay agtiisa cadaab baad ku leedihiin anigu idin malihi laakiin aayadda quraanka idin leh الله وحده تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون تتك الدنيا مجتمع مسلم كائن حمان تلحدي سكفافته الله وحده تبارك وتعالى عذاب حنون بضب الدنيا آخرة كليهن إلهي بمصالح ذوق إذن كسوح ما أوجدين قبل يا ورك مرتدي سوحا الدنيا inaan ugu baaqo cid kasta oo ka qayb gashay sharciga ilaahay wax khilaafsan jideyntiisa qayb ka noqotay waxaan
idinku baaqayaa inta wakhtiga aad haysataan toobad keena oo ilaahay u soo noqdo waa dantiina waa intaad fursadda haysataan haddaad ku dhimataan idinkoo shuruuc ilaahay tiisa khilaafsan jideeya haddaad ku dhimataan hawl idinka idin taallo inaad halaagsanteen shaki kuma jiro waxaan idinka digayaa in kibirka iyo isla weynanka iyo kursi baan ku fadhiyaa iyo madax baan ahay iyo baarlamaan baan ahay inuu idinku xambaarto inaad dembiga ku sii adkaysataan ood ku madax adeegtaan oo aad noqotaan marka qolada ilaahay tilmaamay waidaa qiila lahu ittaqi illaaha akhadathu alcizatu bilithmi faxasbuhu jahannam walabi'sa almihaad dadka qaar waxaa jira marka la waaniyo la yidho war ilaahay ka baq war waad khaldantee ka noqo isla weynanku uu ku xambaaraba inuu kaba sii daraba wasiir baan ahay maxaa la ii taabtay anaa iska lahaa kursigaygii baa la galay madaxweyne aan ahay golo baarlamaan baan ahay hor maxaa tahay miskiin baad tahay yaa bini aadan miskiinaad hawl ilaahay baad gashay toobadkeen soo noq haddaad soo noqon weydo soo maaha faxasbuhu jahannam meel buu ilaahay diyaarsaday kugu filan iyo gogol ilaahay kuugu talagalay baa markaa jirta jaanis baad haysataan soo noqda cid kasta oo jidaysay shuruuc khilaafsan midda ilaahay diintiisa ha ka toobad keeno waxaan sidoo kale u jeedinayaa golaha baarlamaanka shuruuc ilaahay tiisa khilaafsan ha jidaynina haddaad jidayseenna ka soo noqdo buriya tan hadda la wadana ka hortaga diinta ilaahay idinkoo u hiilinaya dhaqanka mujtamaca iyo qiyamka mujtamaca idinkoo ilaalinaya intaasoo fitne iyo fasaadoo soo socda idinkoo ka hortegaya waxyaalaha noocaas oo kale ah diida inkira kuwii jideeyeyna ha toobad keenaan kelimada ugu dambaysa waxaan leenahay mujtamaca muslimka iyo bulshada muslimka ah waxaan leeyahay diintiina inaad difaacdaan iyo akhlaaqda wanaagsan ee ilaahay idin jideeyey waa mas-uuliyad idin saaran waaye ka mujtamaca muslima waxay ka muhiimsan tahay kuraasta iyo jagooyinka aada isku laynaysaan ree hebel maalinkii waxoogaa ay dareemaan ay saluugaan jagooyinka la siiyo dagaal bay galaan soo ma laakiin maalinka ay noqoto dowladdoodii iyo nidaamkoodu inuu diinta ilaahay soo farageliyo waxaa laga yaabaa inaan wax weyn loo arkin taa macnaheedu waxa weeye mas-uuliyadda diinteennu cid inagala ma jirte innaga inala jirtaa inaan ilaashanno oo aan difaacano diinteenna iyo qiyamkeenna garab istaaga culimada iyo dadka wanaagsan ee diinta difaaceeda u taagan lianna ilaahay ummadda guud markuu diinta difaaceeda u xilsaaray culimadaas si gooniya loogu xilsaaray iyagaana u taagan ayagaana loo laayay hadda ka hor haddana waxa ku dhacaya oo aflagaada ah oo xadgudub ah oo muxuu ahaayey hanjabaad iyo handadaad ah wuxuu ugu dhacaya wax khaasa maaha waa ummadda diinteeda iyo dhaqankeeda ha loo ilaaliyo isgarab taaga culimada qodobka kaleeteen doonaya inaan tilmaamo waxa weeye nimanka jagooyinka haya si guud baan u hadlayaa ama madax ha ahaado ama xubin baarlamaan ha noqdeen ama wasiirre ha noqdeen in badan ha ku hadlaynina wax diintiina ku saabsan waxaydaan ugu hadlayn baan idin sheegaya lianna qaar iyaga ka mida diintu dan weynba kama leh qaar iyaga ka mida diintu qiimo weynba uguma fadhido waa intii dhaweed wixii ka dhacahay xamar wixii ka dhacahay waad arkayseen magaalo dhan oo daldhal caasimadiisa oo intaasoo ay ku nool yihiin khalqi ah intoo hub laysugu dhiibo qoryo laysugu dhiibo burburiya oo isku garaaca ma ninkaasaa dal iyo diin iyo ummad dan kale dankama laha sidaas daraaddeed siyaasiga soomaaliga intiisa badan diin ha ku hadlaysanina talada diineed iyo dhaqankiinana ha u dhiibanina hana ku hadlayna inuu idiin ilaaliyo qaar ka mida waxayba ku barbaareenba gaalada aan hadda ka hadlayna dhaqanka xun baa barbaarisay oo afkaartooda soo qaateen oo iyagaaba u ololeynahayaba waxyaalahan inay bulshada dhaqankeeda la burburiyo qaar iyaga ka mida waxay wataan jinsiyadaha waddamadaasay wataan baasboorradoodii bay wataan
ninka baasaboorada wadamada watana haddii uu mashruuca xuquuqda aadamaha ay dhahaan xuquuqda dumarka iyo xoreyntooda waxyaalahan iyo hadduu hor istaago ama ka qayb qaadan waayo xaggaa lagu maxkamadaynaa in badanoo iyaga ka midna diaspora waay soo saas maaha wuxuu ka baqayaa ninka Norway ka yimid baasboortkeeda wata ama ka yimid muxuu Sweden ama muxuu ahay Finland ka yimid ama Ingiriiska ka yimid hadduu barnaamijkan marsiin waayo socodsiin waayo bari inay hay'aduhu xagga ka dacweeyaan waana la xidhiyo wala qabana nin noocaas maad ka sugaysaa adiga inuu diintaada ku difaaco oo hay'adaha yiraahdo maya qaar waa noocaas waay qaar kamida waxaaba ku filanba waxoogaa dhaqaalaha in jeebka loo geliyo oo la yiraahdo hortanada ka leex waxoogaagiisaas uu laabanaya waana soconaya kama marna kulligood ma wada oo kama marna dad fara badan oo qiyamka ummadda xambaarsan oo dhaqanka wanaagsan xambaarsan oo ahlu diin ah oo waxaan la dagaalamaya oo laakiin laga qaalib noqdayna waa ka buuxaan waa ku jiraan iyagu sidaas daraadeed waxaan idin leeyahay ka mujtamac muslim ah gaalka iyo kuwa afkaartooda u adeega intuba hal qodob bay fahmaan halka luqad ay fahmaan waxa weeye shacabkii baa kacay ummadii baa diiday bulshadii baa ka hortimid intaasay fahmaan haddaad maya tidhaahdaan wax socon kara ma jiro kan xataa u ololeynaya kursiga rabaayay si uusan berri kursiga u waayin gadaal wuxuu ka noqdoba hadda wuxuu isku dayay inuu garabkiina istaago dagaalka qayb ka noqdo oo yiraahdo waxaan kuma jirin waana lagu khalday ugu yaraan waana lagu khalday bulshadu marka waxa weeye awood bay leedahay mujtamac awood buu leeyahay awoodda aan leenahay waa inaan isticmaalno annagoo waxba kharibin annagoo waxba burburinin haddana waa inaan dhihi karayno maya wasiirow maya baarlamaanow maya golo wasiirow maya madaxweynow maya wixii dhaqankanaga iyo diintanada ku qaloocan maya inaan intaa dhihi karno waa inta haddii la yiraahdo ma feer baa laga goynaa ya feerna laga goyn maayo sidaas daraadeed walaalayaal ujeedadan leeyahay waxa weeye xamlada socota iyo weerarka socda waa gumaysi miskaxeed waa gumaysi qaanuun waa gumaysi tashriicaad waa gumaysigii dalalkan ka tegay oo ciidan ahaan uga tegay laakiin doonaya miskax ahaan iyo qaanuun ahaan inuu u gumaysto caalamka arinta noocaas oo kale ta marka waa inaan wacyigeeda iyo foojignaanteeda yeelano waana in si wada jir ah arrimaha noocaas oo kale meelay ka dhacaanba hadda soo Puntland kama jirto kuwa kalena waa la dabacsan yahay laandhisyada kalena waa la dabacsan yahay dawladahan kale tan waa lagu soo wada federaalka waa la soo celin doonaa arki doontaa federaalka waa la soo celin doonaa ma laga quusanayo 42 sano soo noqonaysa la doonayaa in la marsiiyo marka laga quusan maayo ilaa isbedel baa la sugayaa ilaa la marsiiyo marka insha Allah taala annagana waa inaan foojignaanteena lahaano insha Allah taala sidaasi ayaynu ku badbaadaynaa haddii wuxuun inoo badbaadi doonaan biidin Allah tabaaraka wa taala ilaahayna intii khaldantayna tawbada Allah waafaji ilaahayna diinteena ha inoo xifdiyo inta xaq iyo wanaaga u taaganna ilaahay ha garab istaago tabaaraka wa taala allana tabaaraka wa taala khaatimo wanaagsan iyo wanaag Allah inagu dilo diinteena Allah xoojiyo gaalada iyo sharkoodana Allah inaga qabto hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi